Bismillahirrahmanirrahiim. Waxaan wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka xilidan oo kale aad ka daawataan warbaahinta Naafic Show. Barnaamijkan intiisa badan waxaan uga hadli doonaa dagaalkii dhexmaray Mareykanka iyo Israa'iil oo isku dhinaca iyo dhinaca Iiraaniyiintu waxyaabaha ay ka faa'iideen iyo Israa'iil maxay ka faa'iideen naftigeeda iyo Mareykanka oo isku dhinaca ma qasaareen Mareykanka iyo Israa'iil xulafadii Mareykanka ee markii hore maaragtay aaminsaneyd in Mareykanka wax walba uu ka difaaci jiray maanta siday ay yihiin kuwaasoo lagu tilmaamay inay yihiin carabta hoggaanbuurta NATO mar hore ayaa waxaa la leeyahay waa ay ka tababushaysteen oo ma aysan isku haleynaynin Mareykanka gaar ahaan markii madaxweyne Donald Trump uu qabsaday xukunka dalka reer Yurub gaar ahaan wayba iska ogaayeen waxyaabaha Mareykanka ka soo jiijile saas darteed carabtii ayaa waxaa la leeyahay banaanka ay ku soo dhaceen dowladda Iran waxa ay gacanta ku dhigtay ayaa la leeyahay hub nuclear ah kaasoo aan ugu baahnayn xitaa uranium waa waxyaabaha la yaab kale inta uu dagaalku socday sidaas oo kale waxaa la leeyahay waxa ay faa'iiday bilaayin dollar oo lacaga kadibna waxa ay faa'iidi doontaa ayaa la leeyahay haddii heshiiskan la isku afgarto ka dhici doona Pakistan waxay faa'iidi doontaa dhaqaale xoog leh kaasoo ay dib ugu soo dhisi karto waxyaabihii laga burburiyay iyo qabateyntii muddada saaray taas oo shacabkeeda iyo maaragtay Iiraaniyiintu ay ku kala badbaadi doonaan maxaa yeelay Iiraaniyiintu waxa loo adeegsan jiray in badan waxay ahayd in shacabkooda laga horkeeno taas oo iyaga naftikooda caqabad weyn ku ahayd laakiin Iiraaniyiintu waxa la leeyahay haddeertan waxay u baahan yihiin in daraasaad weyn ay ku sameeyaan reer galbeedka maxaa yeelay ciidankooda qaabka uu dhisan yahay sirdoonkooda waa wax cajiib ah maxaa yeelay ciidankooda waxa uu leeyahay lakabyo kala duwan kaasoo ay maaragtay adkaatay in laga dhex duso ama loo dhexmaro si shacabka looga horkeeno dowladda Iran inta badan barnaamijkan intaas ayaan ku falanqayn doonaa hadduu Ilaah yiraahdo waxaan kaloo eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay kaasoo ku saabsan inta badan asigana wadahadalka dhexmari doona Mareykanka iyo Israa'iil oo isku dhinaca iyo Iran kaasoo ku dhexmari doona Pakistan iyo Islamabad iyadoo Israa'iil ay ku xadgudbayso mar walba xabajoojintii la gaaray taasoo Iiraaniyiintu ay u arkaan wax xadgudub ku ah sababtoo ay tahay Lubnaan ay weerar ku haysaa maaragtay Israa'iil taasna Iiraaniyiintu waxay u arkaan iyada naftigeeda caqabad maxaa yeelay garbaha siyaasadeed ee ay leedahay Iran kaliya waxaa garab istaagay waqti xaadirkan oo xaaladdu ay ku adkeed Iiraaniyiintu waxay ahayd Xisbullah iyo Lubnaan Xuutiyiintu waan aragnaa aad uma aysan garab istaagin inkastoo la leeyahay Xuutiyiintu waxay isu arkaan dowlad madax bannaan oo aanan ahayn garba siyaasadeed oo ka mid ah garbaha Iiraaniyiintu ay ku duulaan laakiin saas ay tahay iyaga naftigooda hanjabaadyo ay dirayeen mararka qaar gantaalo balaastig ay ku weerarayeen Tel Aviv iyo garoonka Ben Gurion ee Israa'iil marka waxyaabahaas oo dhan ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijkan intiisa badan iyo qodobadii ugu dambeeyay ee wararka caalamka insha Allah dhinaca kale waxaa soo baxday waxyaabo la yaab leh Iiraaniyiintu waxaa la leeyahay haddii ay ku guuleysteen dagaalkii dhinaca kalena waxay ku guuleysteen dagaalkii dhanka digitalka iyo hakarnimadii koox xiriir dhale Iran oo internetka wax ku jabsata ayaa u dhacay telefoonka taliyihii hore ee ciidanka Israa'iil Helf ninka lagu magacaabo oo ay kala degeen ay leeyahay sawirro iyo xogo kale oo ay ku jirto booqashooyin qarsoodi ah uu ku tagay dalalka carabta haddii aynu eegno dhinaca iyo Spain waxa ay noqotay dalka kaliya ee reer galbeed oo sida ugu adag u dhaliila duulaanka Mareykanka iyo Israa'iil ee ka socda Iran iyo Lubnaan waxa ayna sidoo kale xirtay ee leeyahay hawada iyadoo aanan ogolaan doonin diyaarad kasta oo ku lug leh dagaalka ka socda oo Iran oo Spain oo ay ku tilmaantay mid degdeg loo galay oo sharci darro ah iyadoo sidoo kalena maanta ay shaacisay Spain inay dib u furtay safaaradda ay ku leedahay Tehran haddii aynu fiirinay diyaargarow xoogan ayaa ka socda Islamabad halkaa oo la filayo in lagu qabto wadahadallada maanta iyo berri waa fasax maxalli ah taas oo sababtay in iskuulo iyo xafiisyo la xiro wadooyinka ku hareeraysan aagga loo qorsheeyay ee loo yaqaan red zone oo ay ku yaalaan dhismooyin dowladeed iyo safaarado ayaa sidoo kale la xiray xabajoojinta ayaa dhexdhexaadinaysa reer Pakistan ayaa marar badan lagu tilmaamay mid jilicsan waxaana durbaba soo muuqday durduleelo gaar ahaan weerar Israa'iil ay ku hayso Lubnaan qoraal uu ku shaaciyay ra'iisul wasaaraha Pakistan Jawad Sharif ninka lagu magacaabo ayaa sheegay in labada dhinac iyo xulafadoodaba ay ku heshiiyeen xabad joojin si degdeg ah
meel kasta oo ay ku jirto Lubnaan. Si kastaba, Israa'iil iyo aqalka cad ayaa sheegay in Lubnaan aysan ka mid ahayn heshiiska. Arrinta ka dhacaysa Lubnaan ayaa si cad walaac ugu ah marka Bakistan. Wasiirka arrimaha dibadda iyo ra'iisul wasaaraha waxa ay muujiyeen shalay Shariifka waxa uu ku dhawaaqay ama uu ku baaqay in inay isxakameeyaan si fursad loo siiyo marka wadahadallada diblomaasiyadeed. Bakistan waxa ay rajeynaysaa in inkastoo ay jirto farqi weyn oo u dhexeeya mowqifyada Mareykanka iyo Iiraan, haddana haddii ay ku kulmaan Islamabad si ay iskugu soo dhawaadaan, waxa ay ku dadaalaysaa inay isku soo jiido waa Mareykanka iyo Israa'iil oo isku dhinaca iyo Iiraaniyiinta.